runtii anigu waxaan maanta uga faa'iidaysanaya munaasabadan inaan laba kelmadood idhaahdo waxa weeye isku duubnaanta iyo midnimada aynu ku suntannahay haddaynu nahay meesha bureeqa ee laynagu majiirta waxa weeye inagoon tafaraaruq lahayn tafaraaruq la'aantaasina waynu ku soo caalamaalay wanaag mooyaane xumaan kumaynaan kulmin oo laynaguma xanto waxaynu ahay beelaha lagu xanto isku duubnimada inay isku duuban yihiin waxaan xasuustaano waxaan ahay cismaan xasan faarax xildhibaanka golaha deegaanka ee hadda sii tegaya soona dhaweynaya xildhibaanka cusub xildhibaanada cusub ee soo dhaweynayno aniga iyo marxuumka ilaahay ka raadiyaha maalintii dhaweyn jirtay ee isna ka sii tegayey waxa weeye beesha isku raacday labadaa nin ee halkaa ku muxuaha imika la sheegayo mujaahid nuur ibraahim iyo muxuu ahaye maxamuud cabdicabdi waxa weeye maqsadkan adduun lagama helo wax kale lagama helo annagaa joognay waa magac ay beeshu leedahay oo keliya ayaa laga helaa waxaan leeyahay haddaba inta halkaa maanta isugu timid ee sida sharaftooda isugu timid ee muujinaysa taageerada ay u hayaan labadaa musharax sidii uu suldaankuba sheegay waa birihii maantaynu dhignaye dhismaha yaa laylaawi dhismaha yaa laylaawino maalinta muxuu ahaye bisha 13 waxaa ka bilaabmaya gobolka maroodijeex diiwaangelintii da'yartii 15 jirka ilaa 21 jirku ismay diiwaangelin intaasi waa inay culays saarto iyo dadkii berigii hore la waalay ee lagu yidhi haddaad dhooftaan amaad tahriibtaan waxa laydinka heli doonaa muxuu ahaye dhib waxaba la helayaa dase waa laydin soo celinayaa dadkii kale beeraha loo sheegay waxa leeyahay